kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa jimce wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal ayaan idin hayaa sidoo kale waxaan idin hayaa falanqaymo xooggan ee daawasha qiimaha leh ee marka u horeysa wararkii ugu dambeeyay warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aad ku soo dhaweeyo daawadayaasha qiimaha leh qodobada aad ku maqli doontaan wararka ugu dambeeyana waxaa kamid ah waa maxay 10 shay ee ugu waaweyn ee runta iyo beenta ah ee ku xeeran xanuunka COVID-19 oo aan idin hayo daawasha qiimaha leh kuwaas oo aan idin ku soo diyaarinay hab cilmiyeysan oo ka turjubaya markaasi sida dhaqaatiirta iyo saynisyahanadu u diyaariyeen qodobada kale daawada aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda maalintii labaad ayaa Soomaaliya waxaa ka xaniban ama laga xanibay dhamaan diyaaradaha dibadda ka imaanaya iyadoo dalka Soomaaliya oo dhan taas ay ka hirgashay maalintii labaad qodobada kale daawada aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda waxaa kamid ah qodobo kale oo ku saabsan magaalooyinka ugu badnaa ee Mareykanka xaniban iyo Talyaaniga oo asagu kaba hormaray xanuunka dhimashadiisa iyo soo riditaankiisa dalka Shiinaha ee xanuunka soo bilowday oo qodobadaas iyo kuwa kale iyo sidoo kale falanqeyno waaweyn oo ku saabsan arrimaha shirkii Puntland ku soo dhamaaday ee halkaas ka dhacay doorashada maxaa ka jira in doorashadii aysan ilaa hadeerto aysan kala soconaynin ama aysan xisbi samaysan dawladda iyo madaxda hadeerto xukunka haya falanqeymo xoogan oo noocaasna waa idin haya daawasha qiimaha leh ku bilaabay markaan ugu horeysay dalka Talyaaniga ayaa u muuqday in uu ka gudbay ama uu ka dadbatay markaas dadka xanuunka soo ridanayay ee dalka Shiinaha ee markii hore hogaaminayay inkastoo hadeerto Shiinuhu uu markii ugu horeysay ku soo waramayo in uusan qofna soo dhicin 24 saac ugu dambeeyay xanuunka waxaa la sheegay in 427 ruux ay geeridii ugu dambeysay 24 saac ugu dambeeyay ay noqotay taasoo haatan ka dhigan in ku dhawaad 3000 in ka badan 3500 oo qof ay geeriyoodeen taasina waxa ay xaqiijisay in dadka gudaha dalka Shiinaha ku dhintay haatan uu Talyaaniga hormaray dalka Talyaaniga ayaa wali sheegay in dadka xanuunka u soo daadanaya ayaguna intaasi ka badan yihiin ayagoo sheegay in daadashada xanuunka haatan ee dalka Shiinaha ay dhaaftay ilaa iyo 41,000 oo qof dalalka Jarmalka Iran dalka Isbaaniya ayaa iyaguna la sheegay in mid 12,000 oo qof haatan ku dhawaad ay haystaan waxaana la aaminsan in xanuunka haatan uu bilow u yahay ayaa la leeyahay marka la eego dalalka qaarkood ayadoo cabsida xanuunka laga qabanay aad u sii tarayso dalka Mareykanka ayaa gobolka California waxa uu noqday gobolada ugu badan ee dadka ugu badan lagu go'doominayo 22 milyan oo ku dhaqan gobolka California dalka Mareykanka ugu weyn uguna dadka badan ayaa hadeerto la sheegay in ay xadidan yihiin ama la xanibay ama la xayiray sida uu sheegayo gudoomiyaha duqa magaalada Los Angeles ee gobolka California oo sheegay in 12 milyan oo qof lagu daray 10 milyan oo horey u xadidnaa ama wax yarna waxa ay sheegeen in aysan garanaynin sababta goorta ay arintaasi ay qaadmi doonto hadii aad weydiisaan ayuu yiri goorma arinta ayna xiligan ka dhamaa karno ama dadka la xayiraada laga qaadi doono ma ogin ayuu yiri waayo ma ogin ayuu yiri inta qalalaasaha xanuunkan oo si socon karo ayuu yiri Eric Grayson oo ah duqa magaalada Los Angeles ee LA ee dalka Mareykanka waxa ay arintan ku sabeegaysaa iyadoo sidoo kalena dhaqaatiirta dalka Mareykanka ay ku hawlan yihiin in ay dadka toos oo la hadlaan mar walbana warbaahinta dalka Mareykanka ayaa ka qaadanaysa door aad u weyn in ay faafiso talooyinka dadka haddaba daawasha qiimaha leh dalka Soomaaliyana waxa gabi ahaanba ka joogsaday maalintii labaad duulimaadyada caalamiga ah imaanayay shalaysan idin sheegnay daawasha qiimaha leh ayadoo aad moodo dadka qaarkood inay mararka qaarkood isugu khaldaan wararka iyo fikradaha oo aysan ahayn warkii Hurfadh Media ka baxay ee ku saabsanaa in diyaaradii loo jiray Flight Dubai laga celiyo dawladda Soomaaliya hawada ka celisay dad badan waxay u qaadanayaan ama dadka qaarkood waxaana arkay iyagoo u qaatay in ay taasi tahay arin Soomaaliland ka dhan Hurfadh Media sheegtay daawasha qiimaha waxaan rajeynayaa inaynu isla fahanno wixii wara iyo wixii fakre iyo wixii shakhsiyada waa kala labo arintaas waa arin wara waxa ay Hurfadh Media xiriir labaad la sameysay hay'adaha arintaas khusayso diyaaradaas markay soo gashay hawada magaalada Boosaaso ay bad weynta India doonaysa inay ka soo talawdo isla markaana ruudka ay marto dhabahaas ay soo raacdo magaalada Berbera badda cas ay kaga soo dhacdo kadibna ay fadhiisato halkaas ayaa la joojiyay loona sheegay in aysan hawada Soomaaliya aysan u haynin Soomaaliya ruud ay marto sida daradeedna loo sheegay oo hawadu ka xidhan tahay halkaas inay kala jireysay Ethiopian Airlines ayaa sidoo kale baaqatay diyaaradii qaadka ayaa baaqday sidaasna waxa ku hirgashay markaas maalintii labaad inta ilaa hadeerta la ogyahay in ay diyaaradaha caalamiga ah oo dhan ay yimaadaan Somaliland horey waxay u soo saartay iyaduna go'aamo ay ku joojinayso duulimaadyada dalal dhowr ah laakiin dalalka inta badan ay Somaliland joojisay duulimaadyada kuma jirin inta badan dalalka caalamiga ah ee diyaaradoodu yimaadaan magaalada Hargeysa labada diyaarado caalamiga Ethiopian Airlines iyo Flight Dubai ayaa yimaada labadaas oo liiska kuma jirin waxaase ku jiray Soomaaliya oo loola jeeday markaasi diyaaradii ka imaanaya Xamar iyo Garowe iyo meelahaas oo kale hadii jiraan dabcan Garowe hadii jiraan kala Xamar iyo Hargeysa diyaarad badan baa kala taga sida daraadeedna sidoo kale dawladda Soomaaliya waxa ay soo saartay digniino wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa fasaxday dhammaan shaqaalaha dawladda marka laga reebo agaasimayaasha waxaana loo sheegay in guryaha ka shaqeeyaan wasaaraddu waxay sheegtay in sidaas loo sameeyo fayadhowrka badqabka iyo caafimaadka dhammaan ummadda
Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha rayidka ayaa la isla markaana ay tixgelinayaan ay yiraahdeen warqad ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya halka aan nagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda barnaamijkeena falanqaynta wana socday qodobka ugu dambeeya daawadayaal ee ku saabsan wararka waxa weeye waxaan rabaa inaan idila wadaago dabasha qiimaha leh 10 qodob oo ku saabsan xanuunkan coronavirus ama xanuunka loo yaqaano faafaha daran ee sida weyn u faafaya oo ah kuwa cilmiyeysan oo aan ahayn kuwa markaasi oo waxyaalaha wararkan ku saabsan iyo waxyaalaha dadku ay faafiyaan ayaa kamid ah marka waxaan idin kala horeysiinayaa waxyaalaha aan xaqooyinka ahayn waxyaalaha xaqiiqada marka waxyaalaha xaqooyinka ahayn hadda qodobka ugu horeeya disha waxa kamid ah in xanuunkan uu dhamaantii ama qof kasta oo xanuunkan uu ku dhaco uu yahay mid dadka uu yahay si daran ugu dhacayo ama uu qofkii uu jiranaya ay tahay mid aad iyo aad u tabcaanayo ama tabcaan uu noqonayo taasi waa waxyaalaha beenta aan waxba ka jirin haddaba runtu waa maxay 80% dadka xanuunkan uu haleelay waxaa la sheegay in 14% kaliya ay noqotay dad xanuunku uu markaasi si daran u qabtay inta kale ee soo hadhay 66 ka 66 marka 80% ka kale waxa xanuunku ahaa xanuun iska caadi ah oo sida hargabka oo kale ah buu noqday laakiin dadka 14% ka xanuun ku noqday qaarkood wuxuu ku noqday of wareen ayuu ku noqday halka 5% kaliya ay noqdeen dad xaaladoodu ay gashay mid khatar oo markaasi aad u liidata 1% ayaa iyaguna la sheegay in calaamaduhu ay noqdeen kuwo dadku ay fahmi karaan oo qofkaas inuu xanuunkaas hayo aad fahmi karto sida uu qufacayo iyo sida qofkaas uu darsanayo waxyaalaha markaas xaqiiqdu waa taa waxyaalaha kale beenta ah ee aan xaqiiqda shaqo ku lahayn xanuunkan faafaha daran waxa ay dadku yiraahdeen ama dad badan ay aaminsan yihiin oo warfaafin iyo Facebook iyo wax isticmaaleen in dadka waaweyn kaliya uu ku dhici karo taasuna waa been xanuunkan dhamaan wuxuu ku dhici karaa dadka oo dhan haday yihiin qaangaad iyo haday yihiin dad yar iyo haday yihiin dad waaweyn laakiin waxa fursad badan haysta oo xanuunkaas inuu dhibaato weyn u geysto dadka waaweyn gaar ahaan dadka da'doodu kor u dhaaftay 60 dumarka uurka leh dadka qaba xanuunada markaasi in muddo dheer hayay ee chronic loo yaqaano xanuunada markaasi qofku la nool yahay iyo dadka markaasi kamid yahay xanuunadaas waxa noqon karta macaanka dhikarka dadka yani xanuunku markuu difaacidoodu xanuunkaas u jilciyay waxyaalaha kale beenta ah ee warka ku saabsan barnaamij xanuunkan faafaha daran waxa kamid ah in xanuunkan lagu sameeyay shaybaar sameeyay kadibna dunida lagu faafiyay taasi waxa ay hadaba xaqiiqdeedu ay tahay xanuunkii loo jiray SARS oo isagana loo yaqaanay COVID-2 loo yaqaanay waxa uu ahaa mid uusan soo saarin shaybaar wuxuuna la mid yahay kan markii xanuunka laga hortagayay ee laga taqalusayay waxa la sii saadaaliyay in xanuuno badan oo nooc kan oo kala ah ama kan ka sii daran ay soo bixi karayaan waxaana ay xilliyaasha waagaasi ay soo saareen qoraallo scientific ah oo cilmiyeysan oo ay sheegeen in xanuuno kale oo iyaguna saf balaaran noqon kara sida kan oo kale uu noqon karo kana soo bilaami karo waliba bay yiraahdeen koonfur bari Asia waayo ay yiraahdeen dadka sida markaas dhirta isku galay ee faraha badan iyo sidoo kale dadka faraha badan ee ayaguna kala duwan iyo xayawaanka faraha badan ee dadku guryaha ku haystaan oo markaas si dhaxgal xayawaanka dadka imaa karayaan taasi ay keeni karto khatar ah in xanuuno kale ay imaa karayaan kaasoo daraskii uu run noqday oo kan oo kale ka mid noqday waxyaalaha kale beenta waxa ay dadku iska dhaadhiciyeen ama xaqiiqooyinka ku salaysnayn waxa kamid ah in xanuunka bahasha afka lagu duubto afka lagu jeebto mask yar afka lagu duubto afka qalad waxa mask lagu dhaho laakiin af jeebasho mara afka lagu jeebto oo xanuunka ka badbaadi karo hadaba xaqiiqdu waxa weeye inaysan taasi aysan ka badbaadi karin waxyaalaha markaasi la sheegay ixdaa la ogaaday waxa kamid ah in taasi hadii aan markiiba la iska tuurin ayada lafteedu ay keento inay neefta ku aruuriso oo xanuunkaba ayada ku sahashay inay qaadato waxyaalaha ugu wanaagsan ee ilaaha dartii la ogaaday xanuunka laga hortagi karo waxa weeye dhaqitaanka gacmaha iyo sidoo kale in aad ilaaliso in aad naftaada ka ilaaliso mar walba inaad gacmaha gasan ka taabto inaad 20 ilaa 30 ilbiriqsi aad gacantaada saabun ku dhaqdo ama biyo qandacaad ku dhaqdo taas ayaa ah tan ugu wanaagsan waxyaalaha kale xaqiiqooyinka ka fog waxa kamid ah in xanuunkan uu ka badbaadi karo waxyaalaha loo yaqaan sanitizerska ama waxyaalaha afka qalaad ugu yaqaan walxahan dareere ee jeermiska dila in ay dili karaan jeermiska oo dhan inkastoo la sheegay in 70% ay meel mar yihiin oo wax ka taraya wax kasto ay ku jirto maadada khamriga laga sameeyo oo kale ama alcoholka laga sameeyo ay ka dili karto 70% jeermiska hadana waxa la ogaaday in waxa ugu wanaagsan ee ilaaha deerta la og yahay ama dooqa ugu wanaagsan haysata inuu yahay gacmaha inaad dhaqdo oo ah
ta ugu lacag ugu dhaqaalaha yar uguna fiican markay caafimaad ka timaado waxyaalaha kale dabcan ayaguna beenta ah ee banabuurka ah waxaa kamid ah in dadku inuu cabo shaah kulul ama inaad cabto coffee waxa loo yaqaan bun kulul uu xanuunka ka hortagi karo ama xanuunka uu ka qaxay karo hadaba xaqiiqdu waxa weeye in waxyaalaha kulul oo dhan ay ka caawi karaan marmarka qaarkood in neerfayaashaadu si wacan u shaqeeyaan ama sidoo kale aad si wacan aad u noqoto qof markaasi firfircoon oo qandhadu marmarka qaarkood ay ka hortagto laakiin taa macnaheedu maaha ayaa la yidhi in ay tahay sida aad u fikirayso waxaa la yidhi haddii aad waxyaalo aad iyo aad maaragtay u kula cabto waxaaba khatara in tuumbada dhuunta ee markaas hunguriga ah ay u geysato dhaawac taasuna ay basaasho in xanuunkaa ka weyn ayba kuu geysato marmarka qaarkoodna ay lakabyada kala sarreeya ee afka sida markaasi dhanxanig oo kale iyo dhuuntaba labadaba ay khatar weyn u geysato waxyaalaha kale ee beenta ah ee iyaguna dadka qaarkood ay faafinaya waxaa kamid ah in cunitaanka toonta iyo basashu ay xanuunka ka hortagayso ama ka hortag ay tahay inkastoo la xaqiijiyay in cunitaanka toonta iyo basashuba ay aad iyo aad caafimaadka ugu wanaagsan yihiin gebi ahaan haddana waxaa la ogyahay inaysan taa micnaheedu ahayn inaysan xanuunka ka hortagi karin wax caddayn saynis ah looma hayo arrintaasi oo caddeynaysa qodobka kale ee dabaasha qiimaha leh isaguna been abuurka ee baryahan oo dhan warbaahinta qaarkood ama dadka qaarkood ay warwareynayeen oo warbaahinta xataa qaarkood kuwa reer galbeedka qaarkood ay sheegeen waxaa weeye in la horumariyey ama la helay tallaal xanuunkaasi ka dhana haddaba xaqiiqdu waxaa weeye ma jiro ilaa hadda yarto tallaal jira oo la xaqiijiyey oo la sheegay inuu meelmariya hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku dhawaaqday maalintii Arbacada ahayd in uu jiro isku day tallaalo la diyaarinayo laakiin uu qaadan karo muddo aad u dheer dhaqaatiirta kale iyo dhammaan xaleerada oo dhan waxay sheegayaan in 18 bilood iyo wax ka badan xanuunkan laga yaabo inuu sii joogo dadka la joogo waxyaalaha kale xaqiiqooyinkan ku salaysnayn waxaa kamid ah in xanuunkan uu dawo u yahay ama aad kaga hortagi karto inaad qaadato dawooyinka antibiotic loo yaqaano ama dawooyinka loo qaato in ay dilaan markaasi caabuqa daweeyaan xanuunkan haba yaraatee ma jirto cid caabuq la xiriirinaysa antibioticna waxa uu daweeyaa marka ay xaqiiqda timaado ay daweeyaan waxyaalaha ay dhaliso bacteriyada infectionka ama infection bacteria waxa loo yaqaano oo iyadu ah caabuq feer xanuun yani malax oo kale ay u dhaliyo sida daraadeed dhaqaatiirtu waxay cadeeyeen iyo saynisyahanadu in xaqiiqdu ay tahay in xanuunkaas aysan antibiotics aad isku sii daldasho aysan waxba ka tari doonin intaasan ku joojinaya dabaasha qiimo leh amaanaha